الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، waxaan soo haynay risaaladii matnu lbinaa. waxaan soo gaarnay qowl lmu'alifi raximah allahu tacaala wasittatun minha limulxaqi daxraja. waxaan horey uga soo hadalnay ficilka hulaasiga in loo qeybinayo mujarad iyo masiid. athulaathiyu lmasiidna waxaa loo qeybinayey mulxaq iyo hayru mulxaq. hayru mulxaq waa ka soo hadalnay. darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay hulaasiga masiidka mulxaqa ah. saddex baa loo qeybinayaa. almulxaqu birubaaciyi lmujarad waxaa loo yaqaanaa mulxaqun bidaxraja. qeybta labaad waa almulxaqu birubaaciyi lmasiid bixarfin waxaa loo yaqaanaa mulxaqun bidadaxraja. qeybta saddexaadna waxa weeye almulxaqu birubaaciyi lmasiid bixarfayni waxaana loo yaqaanaa mulxaqun bixranjama. marka mu'alifka markuu soo dhameeyey arubaaciyu lmujarad wuxuu hadda guda gelayaa maa ulxiqa bihi. marka wuxuu yidhi raximah allahu tacaala wasittatun lixdaasoo minhaa min alkhamsati wathalaathiina baaban ka mid ah limulxaqi daxraja ayay u sugnaaday. marka mulxaqu daxraja waa hulaathigii mujaradka lagu siyaadiyey xaraf. mu'alifka marka wuxuu tilmaamayaa almulxaqu birubaaciyi lmujarad inuu 6 baab ka kooban yahay. culammada qaarkoodna hal baab bay ku daraan. mu'alifku wuxuu ka tegay wasanka facnala sida qalnasa oo kale, oo waxaad odhanaysaa qalnasahu idaa albasahu alqalansuwa. alqalansuwana waa koofida. almuhim meeshuu yidhi sittatun waxaa sawaaba in la yidhaahdo sabcatun. wasanka uu ka tegayna waa facnala. nacam, inta aanan guda gelin almulxaq birubaaci abwaabtiisa waxaa wanaagsan in dhowr shay oo ku saabsan ilxaaqa inaan isxasuusino. awalan tacriifuhu. ilxaaq waxay ku tacriifiyaan idkhaalu wasnin anqasa في وزن آخر أزيد منه بزيادة حرف أو أكثر عليه. وزن نقصان كسوغانتهاي إن لقليه أما لهليشيه وزن كلا إن لقليه كحروف بدن قاب كلو هليشينا ينمركو حوية فعل كنقصان كسوغنا إن لقو زيادة حرف أما كبدن. مثلا بيطر وعلى وزن فيعل. فعل كان أصل كيسوح ككوبنا 3 حرف الباء والطاء والراء. سوى الثلاثي مجرد بوحى لقو زيادة هالحرف. xarafkaasna waa ya-da dhacday haaniyan. markii xarafkaas lagu siyaadiyey wuxuu noqday mulxaqun birubaaciyi lmujarad. rubaaci mujaradkana waa maalan daxraja oo kale. marka baytara iyo daxraja xagga dhawaqa waa iskaga mid walba wuxuu ka kooban yahay 4 xaraf. awalka waa la fadxiyey, xarafka labaadna waa la reebay, xarafka saddexaad iyo kan afaraadna waa la fadxiyey. markaas waxaa la odhanayaa baytara waa mulxaqun bidaxraja. farqiga u dhexeeya waxa weeyaan daxraja xuruufteeda dhan waa asal, amaa baytara 3 baa asal ah, hal xarafna waa zaa'id. marka ficilkan hulaasiga markii la haleeshiiyo daxraja ama tadaxraja ama ixranjama waxaa loola dhaqmayaa mucaamalati mulxaqi bihi. mulxaqun bihiga qaabka loola dhaqmayey baa loola dhaqmayaa. bimacnaa xagga masdarka waa iska waafaqayaan. dhinaca kale waxaa ka dhexay itixaad fii jamiici tasaariif. marka baytara fi jamiici tasaariifi daxraja ayay shabahaysaa. waxaad odhanaysaa baytara yubaytiru baytaratan wa biitaaran. idan waxay xagga wasanka iska waafaqayaan tamaaman fi lmasdari wa jamiici tasaariifihi daxraja. waxaad odhanaysaa daxraja yudaxriju daxrajatan wa dixraajan. marka tacriifka dib aan usoo noqono waxaa la yidhi idkhaalu wasnin anqasa. wasan naaqis ah sida batara oo kale in la geliyo oo la haleeshiiyo fii wasnin aakhar asyada minhu. wasan kale oo hal xaraf ama ka badan ka siyaadsan in la haleeshiiyo. qaabkee lagu haleeshiinayaa? biziyaadati xarfin aw akthar calayhi. ficilkii mujaradka ahaa in lagu siyaadiyo hal xaraf ama ka badan. maalan batara waxaad ku siyaadinaysaa ya, wuxuu noqonayaa baytara. markii sidaa la yidhaahdo mulxaqa iyo mulxaqun bihiga waxay iska waafaqayaan fii cadad alxuruuf waalxarakaati waasakanaat. kadibaa mulxaqii loola dhaqmayaa mucaamalat almulxaqi bihi fii masdarihi wa jamiici tasaariifihi. ardayga waxaa laga yaaba in isweydiiyo athulaathiyu lmasiid bixarfin awsaantiisu waxaa weeyaan afcala facala faacala. saddexdaani maxaa looga dhigi waaye mulxaqun bidaxraja? jawaabtuna waxa weeyaan waxaa u diidaya afcala masdarkeedu waa ifcaal, facala masdarkeedu waa tafciil, faacala masdarkeedu waa mufaacalatan. amaa daxraja masdarkeedu waa faclalatan. shardigana wuxuu ahaa mulxaqa iyo mulxaqun bihiga inay iska waafaqaan xagga masdarka. marka maadaama masaadirta iskhilaaftay ilxaaq ma jiro. nacam, taa marka waa sababka koobaad. sababka labaad waxa weeyaan
حروف الزيادة waa 2 nooc حروف loo keenay limacnan iyo xuruuf loo keenay liilxaaq ziyaadad ku timid limacnan waxa laga wadaa xarafkan lagu ziyaadinaya ficilka mujaradka macna ayuu wataa macnahaasi waa mutarid mar walba ficilka mujaradku galo macnahaasi waa la helayaa مثلا همزة كشيء أفعل همزة سي معناه وتوالي التعدية فعل مجرد لازم يجلس وحكى متعد لمفعول واحد سيدا مثلا كرم وفعل لازمة همزة كدر حنقنا أكرم أكرم مركا ومتعد كرمنا ولازم فعل كمجرد كادوها متعد لمفعول واحد همزة اسمك لجزئية فعل وحكى متعد لمفعولين مثلا فهم زيد المسألة فهم وفعل متعد هل مفعول يقاطي هدي همزة لجزئية لا مفعول قاضنيا أو حد لا أفهمت زيدا المسألة زيد وحن فهمسي مسألة إذا زيد مفعول كوباد المسألة هو مفعول كلاباد إذا همزة مال والبول الجليو فعلك وحكى متعد هدو لازمها وحكى متعد لمفعول واحد هدو متعد لمفعول واحد وحكى متعد لمفعولين هدوها متعد لمفعولين وحكى متعد لثلاثة مفاعيل معناها سمركه مضطرد وحلم إذا استفعل وحنصور شقنا السين تيتعذ وحي فائدة الطلب معناه سوى مضطرد فعل كستول جليو معنه هو لهلية أرنك سوحا خلافا زيادة لإلحاق مثلا بيطرة يأذن وحلو زيادي إن حق الروقة كسناته دحرجة وغرض لفظي معهن غرض معنوي مجرد وحل ربا لفظي عن بيطرة إن حق وزنك وإكاده دحرجة لكن مهم أن تكون برادكتد حروف الإلحاق مرمر معنوى فائديان لكن معناها سيفائدين يعني معهن معنى مضطردة معنى مضطرد وكسر هذا الني همزة القطع مركي لجو زيادة فعلك سوح نقنيا متعد إما متعد لمفعول أو لمفعولين أو لثلاثة مفاعيل سيدو كلا ألف تكون تفاعل مركي فعلك مجرد كلجو زيادة معنى فائدين يسا مضطرد معناها سنواء المشاركة الحاق صاص معها حتى هدو معنى فائديه معناها سي أفعاش أو المجريه مركي فرق قاس أو الحياة زيادة لمعنى إي زيادة لإلحاق زيادة لمعنى معناها سوى مضطرد بلا وضع زيادة الإلحاق لو متكود ويان إنه سمعنا فائدين غرض كويها غرض لفظيه إنه معنى فائديه معناها سوى فائدين مركب معنى مضطردة معها فعاش قاركم بلغه ليا مركب الحاق تعريف كيسة انت سنكا قابسانينا هدان سو خلاصينو لابا شي بان كهدلني تعريف الإلحاق هي شرط كيسة تعريف وحن كشغنا إدخال وزن أنقص في وزن آخر أزيد منه بزيادة حرف أو أكثر عليه شرط الإلحاق في الأفعال نوحوية اتحاد مصدر الملحق والملحق به ملحق مصدر كيسة هي ملحق به مصدر كيسة إن اتحادان اتحاد كوحكا وضعان اسكو مصدر وين كوي ماذان مثلا بيطرة بيطرة وبيطارا حوقلة حوقلة وحيقالا لبداس قضب أيان كسو هذا قضب كسدحد وحويان أمور يتميز بها الإلحاق إلحاق الرماء كغير سوعين غيرك أولا إلحاق لا يكون بزيادة في أول الكلمة حروف الإلحاق أول الكلمة مقالان وسطك في آخر كي قالان وسطك واسدة مثلا سيطرة سيطرة هرولة هرولة آخر كنواسدة سلقى سلقية هي جلببة جلببة شيء قال بعض غيرك كسو عين وحوية هرنا وصو إشارني ما يزاد للإلحاق لا يكون مزيدا لغرض معنوي تضطرد زيادته لأجله وحي لزيادته لأجل الإلحاق من نقضه مزيدا لغرض معنوي يعني غرض معنوي لو ما كانه حروف الإلحاق وحلو كان لغرض لفظي مجرد وحل رباء وزن كان لهليشيه أما لمعنى غير مضطرد أرين كان وكسو هذا أرين كسدحاد وكسو عين غير كي وحوية فعل كمزيد كملحقة يأسل كيسة حاجة معنا إنس خلافان هدعي كرته مثلا حوقل وفعل ثلاثي ولجزء هذه حرف سداسنا مركا كل نقضي ملحق لهليشين أيه دحرجة أسل كيسو مركا وحقل فعل كان مزيد كحوقل هي فعل كيسي مجرد كحقل حاجة معنا وسكو خلاف سيئين حقل يحقل من باب ضرب يضرب معناه هو زرع أما حوقل حلو استعمال مثلا حوقل الشيخ إذا كبر وعجز عن الجماع قف كمركو ويناده أو ضعيفه أودن أوايه جماعة إذا فعل كان مزيد معنيه سوح خلاف سيهي
ficilkiisi asalka ee mujaradka arrinkaasna marka waxyaaluhu keyrkii kaga soocan yahay weeyaan. ayib mumayizaadka ilxaaqa waxaa ka mid ah waxay yidhahdeen laa yajuusu fi lmulxaqaati alidgaamu fi lmutamaahilayni mutlaqan maca wujuudi muujib alidgaam. ma bannaano mulxaqaadka in laisku idqaamo laba xarafo mutamaathil ah weliba iyadoo la helay muujib alidqaam, wax keenaya idqaamka iyadoo la helay ba haddana laisku idqaamaynin. sidoo kale waxaa bannaanayn aliclaalu fii gayri alaakhiri, in markaa ficilka mulxaqa ah la iclaaliyo ayadoo muujibuliclaal la helay. sababtana waxa weeye ujeeddada laga leeyahy ilxaaqa waxa weeyaan kelimo naaqis ah in la haleeshiiyo kelimad kale ama 4 xaraf ka kooban ama 5 ama 6. si marka qaradkaas loo helo waxaa laasim noqonaysa in la xifdiyo wasanka mulxaqun bihiga. idqaamka iyo iclaalka ku imaanaya mulxaqana arrinkaasay diidayaan. maalan jalbaba waxaa la yidhi waa mulxaqun bidaxraja. jalbaba labadeeda ba ugu dambaysa waxaa la iskugu idqaami waayey lianlaa yabtula alilxaaq, ilxaaqa suusa meesha uga bixin. ujeeddada waxay ahayd an tulxaqa kalimatun bikalimatin ukhra fi lwasni. nacam, iclaalka mithaalkiisuna waxaa weeye jahwara waa mulxaqun bidaxraja. waxaan hore usoo baranay xaraf saxiixo saakin ah iyo xarfu cila mutaxariga haddii la arko naqli baa la samaynayaa. markii naqligaas la sameeyo qaacidadii baa imaanaysa idaa taxaraka xarfu lcilati fi lasli wainfataxa maa qablahu alaana qulibat alcilatu alifan. laakiin jahwara iclaalkasi waa loo diiday. limaada? lianlaa yabtula alilxaaq, si uu ilxaaq u burburin. oo ujeeddada waxay ahayd kelimadan fi lxarakaati waasakanaati inay waafaqdo mulxaqun bihiga. haddii la iclaaliyo jahwara wuxuu noqonayaa jahaarun. jahaarun fi lxarakaati waasakanaat ma waafaqayso daxraja. idan taasay u jeedaan lianlaa yabtula alilxaaq. laakiin waxaa la ogol yahay iclaalka inuu galo fi aakhiri almulxaq. sababta haddii aakhirka la cileeyo laa yufawitu alilxaaq, ilxaaqa meesha kama baxayo. maalan salqa oo kale asalkeedu wuxuu ahaa salqaya, ya-di waa la cileeyey, taxaraka xarfu lcila wainfataxa maa qablahu qulibat alcilatu alifan fasaara salqa. iclaalkani ilxaaqa ma burburinayo. sababta waxaa bannaaneyd kelimadan in lagu istaago bisukuun. waxaad oran kartaa daxraj salqay. idan marka xag dhawaqa waa iskaga mid soomaan, daxraj salqay salqaa. marka waxay yidhahdeen dii aakhirka la iclaaliyo wasankii baaqi buu noqonayaa. maadaama wasankii uu baaqi noqonayo ilxaaqii marka ma burburayo. marka sidaa darteed waxay yidhaahdeen yajuusu iclaalu aakhiri lmulxaq. almuhim si guud ahaan waxaan odhanaynaa mulxaqa waxaa laga ilaalinaya idqaam iyo iclaal. qodobka shanaad waxa weeye ilxaaqa xuruuf khaasa ma leh. xuruufta sa'altumuniyahana waa noqon karaan, keyrkoodna waa noqon karaan. maalan jalbaba oo kale xarfka lagu ziyaadiye waa albaa, bacduna kama mid aan xuruufa sa'altumuniyaha. nacam, qodobka ugu dambeeya faa'iidatu lilxaaq. ilxaaqa faa'iidadiisu waa maxay? ilxaaqa fawaa'idiisa waxaa ka mid ah ifaadatu quwati almacnaa. macnihii asalka wuxuu faa'iidanayaa quwo loo yeelayaa. maalan kawthar waa mulxaqun bijacfar, macnaheeda asalka wuxuu ahaa alkahra. markii wowdan lagu ziyaadiyey waxay faa'iidaysay alkhayru almufritu fi lkahra, khayr aad iyo aad iyo aad u fara badan. khayrkaasi waxaa ka mid a sharafu nubuwa, waxaa ka mid a dukhuulu awliyaai illaahi subxaanahu wa tacaala nahra alkawthar. saciid ibnu jubayrna waxaa lagu yidhi dadka waxay odhanayaan alkawtharu huwa nahrun fi ljanna. markaas wuxuu ku jawaabay huwa min alkhayri alkathiir. webigaas ay sheegayaan wuxuu ka mid yahay min alkhayri alkathiir. idan alkawthar waxay faa'iidaysay macnihii asalka iyo ziyaada. darsigan soo socdan wuxuu ku saabsan yahay almulxaqu birubaaciyi almujarad. hada wallahu aclam, وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.